haddii aan isku dayo sharci ahaan inaan iftiimiyo xaaladda maanta uu ku jiro komishankii doorashooyinka qaranka oo ay taagneyd xaalad doorashooyin fara badan oo qaranka u taagnaa ay carqalad ku noqonayso. waxa dhacday sidii guddidaasi ay soo geliyeen baraha bulshada inkastoo inaynu hayn xaqiiqad dhabo iyaga ka timi, laakiin xilka qaadistaas wuxuu muuqdaa un mid baraanka ama khiyaali. sababta khiyaaliga u noqonaya waxa weeyaan horta marka hore komishanku doorashooyinka qaranku iyagaa u madax bannaan waajibaadkooda siday u gudanayeen. cidina kuma faragelin karto, cidina uma yeedhin karto, saameynna laguma yeelan karo. siduu sheegayo qodobka 13aad ee xeer lambar 91 2020 waxay u wada madax bannaan yihiin dhammaan go-aanada ay gaarayaan. haddaba marka laga hadlayo doorasho wuxuu xeerku ka hadlaa, xeerkan 91ku wuxuu ka hadlaa siday guddoomiyaha u dooranayaan oo uu ku sheegay in ay majority ay noqonayso. laakiin xeerku totally maba soo hadal qaado xilka qaadis waxa la yidhaha inay xilka ka qaadi karaan. xeerku muu soo hadal qaadinba, ma lihin guddoomiyaha lagama qaadi karo oo waa sunno wanaagsan in guddoomiyaha xilka laga qaado oonu u haysan inuu isagu meesha leeyahay. qof kasta weliba waxaan anu jecelay si transparent loo helo ama qofku uga boqo shuruucda in mas-uul kasta lagu exercise gareeyo markuu muddo joogaba in kays casili waaye isaga laftarkiisa xilka laga qaado. laakiin xilka ka qaadistu waa inay noqotaa mid sharciya oo aan u muuqan wax khiyaaliya. iminka oo kale go-aamada guddida doorashooyinku ay gaarayeen waxay ku gaaraan si majority-a, laakiin waa inay fadhiyo ku dhex gaarhaan. waxay noo muuqataa in aanay wax fadhiya aanay u qabsoomin guddidii doorashooyinka qaranka. laakiin qoraalkay soo baxay ee ay ku saxeexan yihiin 5 xubnood, xubin ka mid a marka la eego reality-ga loo noqdo xubin ka mid waxay maqan tahay sanad ku dhawaad ayuu fasax qaatay oo uu dalka ka maqan yahay. taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay isagoo saxeexay positionkii 4 xubnood kale inaanay halkaasi fadhiba aanu qabsoomin. isla qodobka 16aad ayaa isaguna wuxuu ka hadlayaa awoodaha xilka qaadistooda. guddoomiyuhu wuxuu qoray hore qoraal buu qoray guddoomiyihii commissionku. qoraalkaa uu qoray nuxurkiisu waxa weeyaan in guddidii musuqmaasuq iyo waajibaad gudasho la-aan fara badan oo madaxweynuhu ka codsaday in baadhis loo soo diro si waafaqsan qodobka 15aad farqadiisa 1 iyo 2. markaa qodobka 15aad wuxuu ka hadlayaa musuqmaasuq marka ay komishanka musuqmaasuqa waajibaad gudasho la-aanta waxaasoo dhan markay yimaadaan in baadhis loo soo diro. aad baa ugu ammaanayaayo maynu arag mas-uul leh kaalayna baadha, waxbaan naga qaldana kaalayna baadha. hadday murankooda noqoto, hadday noqoto musuqmaasuq hantidii ummadda lagu lunsaday, waxaasoo dhan de waxaanu aragnay mas-uuliyiin dada. laakiin hadduu yidhina baadha waan anuu soo dhaweynaya qodobkaa. manay ahayn in middo ku taag la sameeyo, inay ka warsugaan bay ahayd qoraalkaa uu madaxweynaha u qoray. ama ha lagu helo wax ama ha lagu waayo. wuxuu bay noqon leedahay haddii wax lagu helana in la kala diro oo nidaamkii sharciga ahaa la mariyo. haddii lagu waayana uu sii socon lahaa un shaqadii maalmeedkoodii, maadaama doorashooyin fara badanna ay sugayaan. umay baahnayn maanta in la carqaladeeyo. markaa waxaan madaxweynaha usoo jeedinayaa laftarkiisa inuu waajibaadkiisa ka guto si waafaqsan qodobka 15aad farqadiisa 2 oo sheegaya codsiga marna ikhtiyaar buu codsan karaa u gali karaa madaxweynuhu oo guddi ugu dalbi karaa xaqiiqa raadina ama guddi baariseed
ayuu mar u dalbi karaa si ikhtiyaariya guddoomiyuhuna uu ka codsan karaa markaa xubnaha laftarkoodu way ka codsan karaan markaa kol haddii guddoomiyihii ay ka timi xilka qaadistan ama nidaamkan lasoo abaabulo wuxuunbuu muuqanayaa inuu yahay mid lagu luminayo xaqiiqada dhabtee jiri layd ee la ogaan lahaa markaa madaxweynaha waxaan ku ta'kiidinayaa oon ka codsananaa oon u soo jeedinayaa sharci ahaan inuu nidaamka sharcigaa u maro inkastuu madaxweynuhuba sidii warbixinta la sheegay uu yidhi sharcigaad ku kala baxaysaan taasi waxa weeyaan dee maadaama oonay u dhisnaynba qaabkii ay xilka uga qaadeen ay yidhaahdeen waan uga qaadnay ilaa iminka wuxuunbuu sharcigu rumaysan yihi guddoomiyihii saxda ahaa inuu yahay guddoomiyihii hore gudoomiyaha sheegtay inay noqotay markay xubnimadeeda xisbiyada mucaaradka ka soo horjeesadeen sidanoo kale aan uga hadlay maalinta inay waafaqsantahay xaq u leedahay in xubinnimadeedu loo doorto ayaan ka hadlay waxa la yidhi walaalkaa laba goorba u hiili marka uu qalad leeyahayna ka qabo marka uu saxan yahayna ku taageer labadaa goorba waad u hiilisay markaa anuu labadii goorba waan u hiiliyo maanta iyadoo lagu qaldan oo kursi xaaraana oo sharci darra aad doonaysana waxaan leeyahay waa xaaraan shalay iyadoo doonaysayna iyadoo loo diidanaana waxaan lahaa xaq bay u leedahay markaa labadii goorba waa dee sharcigu maaha wax eex gala maaha wax rabitaan qof lagaga shaqeeyo waa siduu yimba loo dabaqaa golihii muddo ugu yaraan 4 wiiga ayuu fasax gelayaa baa la yidhi 8 wiig ba iminka maraya ay dhammaysteen 8 wiig markay dhammaysteen 3 wiig oo kale ku darsadeen waa dastuur jabin markaa iyagii haddii dastuur qodobkaa dastuuriga ay ka tallaabsadeen ee sheegaya ugu badnaan in ay 8 wiig ay fasax galaan ugu yaraan 4 ay galaan haddii ay ka badsadaan maxaa tallaabee la qaadaya de iyagiiba dastuurkii jabiyey iyagii ahayd in madaxweynaha impeachment ay ku dallacaan marka uu oo ku ilaaliyaan dastuurka markuu jabiyo ayaa iyagii jabinayaba waxaad arkayseen in golayaasha qaranka ee caalamku baarlamaanadu ay inoo fadhiyeen oo ay suuqyadeennii gubtay ay nala baroordiiqayeen kuweenii dalka joogayna iska daayo fasax bay sii galeenba markaa halkan inaan la isla xisaabtamin qaranka oo aan maca waxaan aynu ka sheekayn waxba laga soo qaaday taasaa ayaa idinku cadday